soo dhawaada saaxiibayaal waxaan rajeynayaa inaad caafimaad qabtaan kahor inta aan muuqaalkeena bilaabin haddii aad ku cusub tahay janaalkeena subscribe sheertana ha ilaawin laagtan waxay ii tahay dhiirigelin aad ayaad u mahadsantihiin dhammaantiin filimkeena wuxuu ku bilaabmayaa wiil lagu magacaabo Sion wuxuu u soo aadayaa goob xaflad ah haatan gabadhan waxaa lagu magacaabaa Erika iyadana waa gabar dhagool ah dhammaan dadkii xafladda oo dhan waxay soo fiirinayaan labadooda waxayna leeyihiin gabadhan ayuu xiriir la leeyahay Sion ayaa aad ugu xanaaqay hadalka dadka laakiin waa uu isdejiyay Sion Erika wuxuu ku dhahayaa hadalada dadka waxba ha ka soo qaadin ee hore u soco Erika iyo Sion waxay isguursadeen 4 sano ka hor oo aysan cidna ogeen guurkooda marka laga reebo qoysaskooda Sion oo xafladda jooga waxaa soo wacay ninkii burcadka ahaa wuxuuna ugu hanjabay haddii $5 milyan uu siin waayo inuu dili doono xaaskiisa Sion isagu waa bilyaneer wuxuuna ka baqayaa hantidiisa in la dhaco Erika inuu qabo xaaskiisana ay tahay dadkii oo dhan ayuu ka qariyay kaliya wuxuu u sheegay waalidiintiisa isagoo ka baqaaya in dadka ay dhahaan xaaskiisa waa dhagool dadkii oo dhan wuxuu ugu sheekeeyay Erika inay tahay caawiyihiisa shaqada ee shirkadiisa intaas kadib burcadkii ayaa ugu hanjabay Sion inuu xafladda uu joogo hubna uu la soo galay goobta xafladda xaaskiisana uu dili doono haddii uu lacagta bixin waayo kadib Sion wuxuu arkayaa nin telefoon ku hadlaya oo saaran qaybta sare ninkii ayuu u tagay kadibna wuxuu ka qaaday telefoonkiisa wuxuuna ogaaday burcadkii inuusan ninkan ahayn habeenkii markii la gaaray Erika waxay soo aaday guriga Sion hooyadiis waxayna u sheegtay xaflad heer sare ah oo miisaanka culus ah in loo dhigay intaas kadib waxay u sheegtay inay daalan tahay rabtana inay gurigeeda aado Sion hooyadiis waxay dhaaday habeen madow miyaad baxaysaa kadibna waa ay ka diiday hadalkeeda gaariga ayayna soo raacday si lama filaana gaariga ay wada ayaa istaagay waxayna ogaatay gaarigeeda inaysan dhaqaajin karin waxay aragtay nin afka u duuban wuxuuna u soo galay gaariga gudihiisa dhanka kale Sion ayaa la soo wacay markii uu telefoonka qabtay ayaa waxaa lagu dhahay xaaskaaga waan dili doonaa haddaa isiin weysa lacagtii aan horey kuugu sheegay oo $5 milyan Sion wuxuu ku jawaabay waad kaftamaysaa muuse intaas kadib burcadkii ayaa ku jawaabay kaftan aniga ma aqaani lacagta ama gabadha mid dooro Sion ayaa wacay hooyadiis markaasuu dhahay hooyo guriga miyay joogtaa Erika hooyadii ayaa ku jawaabtay Erika waa ay baxday anigoo dhahay xili habeen ah waaye ka joog ha bixin Sion ayaa mar kale wacay ninkii afduubaa ahaa afduubihii Sion wuxuu u sheegay inuu xaaskiisa dhuunta uu ka qalay afduubihii ayaa furay sameecadda banaanka ee telefoonkiisa si uu u maqalsiiyo waxa meesha ka socda Sion isagoo ilaalinaya hantidiisa ayuu wuxuu dhahay waxaad samayn karta samee intaas kadib afduubihii wuxuu bilaabay inuu silib ku ceejiyo Erika oo ah xaaska Sion kadib wuxuu dhahay ninkaaga waa taajir balse hantidiisa ayuu kaa jeclaaday intaas kadib gaarigii ay saarnaayeen ayaa shil galay Erika ayaana ka baxsatay goobta Sion habeenkii xigtay waxa uu imaaday gurigiisa wuxuuna guriga ku arkay Erika kadibna waa uu shakiyay intaas kadib Sion wuxuu arkayaa Erika oo qoorteeda ku taala dhaawac markaas ayuu xaqiiqsaday hadalkii burcadka Erika ayuu ku dhahay message ayaan kuu soo diray maxaa iiga soo jawaabi weysay habeenkii xigtayna waxaan arkaynaa burcadkii oo soo qaatay mooto wuxuuna soo aaday guriga Sion isagoo iska dhigaya qof wada cuntooyinka fudud ama sida loo yaqaano delivery gudaha ayuu soo galay qolka guriga marka uu soo galay qayb ka mid ah guriga ayuu qarxiyay Sion waxaa fariin u soo diray burcadkii wuxuuna u sheegay inuu gurigiisu iska qarxiyay lacagta haddii uu dhiibi waayona dhibka uu sii wadi doono maalintii xigtay Sion wuxuu soo aaday booliska wuxuuna ku wargeliyay inuu jiro burcad asaga u hanjabayo intaas kadib Erika iyo Sion waxay soo aadayaan shaqada shirkadooda Sion ayaa weydiiyay Erika burcadka qaabku u yaalay haddii ay wax ka xasuusato dhammaan dadkii ayaa ku wareereen Erika waxa ay sheegayso maadaama ay dhagool tahay maalintii xigtayna Sion wuxuu xafiiskiisa ugu wacay booliska magaalada waxayna ka wada hadleen qabashada burcadka uu ku walaacsan yahay isaga dhanka kale Erika oo ka muuqda cabsi aad u daran ayaa waxaa aragtay gabar lagu magacaabo Hu waxayna weydiisay walaac ka muuqdo weliba habka dhagoolada ayay wax ku weydiisay Erika ayaa ku jawaabtay burcad ayaa igu soo socda haddii aan goobtan sii joogana wuu idilayaa ayay ku dhahday intaas kadib Hu ay fahmi weysay waxa ay sheegayso Erika kadib Erika ayaa hab qoraal ahaan ku tusinayso hadalka ay ku dhahday Hu ay fahantay Erika waxa ay sheegayso Erika ayaa gaarigeeda soo raacday isla markiiba waxay soo aaday gurigeeda marka ay imaado waxay aragtay Sionkii xigtay Sion oo la jooga adeerkiis guriga waxaa soo weeraraya burcadkii wuxuuna gubay guriga Sion adeerkiis waxaa jiray wiil yar oo dhalay Sion adeerkiis oo arkay burcadka wajigiisa isla markiiba burcadku wuxuu afka ka qabtay wiilkii yaraa isagoo ka baqaayay inuu qeeliyo
dhibaatada gurigaas ka dhacday waxaa dhaawac ka soo gaaray Sion adeerkiis isbitaal ayaana loo qaaday. Isla habeenkii xigtana burcadku wuxuu soo aaday isla gurigii waxaana joogay Sion hooyadiis. Dhinaca kalena Sion wuxuu ku maqnaa isbitaalka. Intaas kadib waxaan arkaynaa Sion iyo Erika oo soo raaceen gaariga waxayna soo aadeen guriga adeerkiis. Waxaana ka horeysa Sion hooyadiis oo joogta gurigaas. waxaana si lama filaan ah isaga hor imaanaya burcadkii oo gaari watay wuxuuna gaarigiisa rabay inuu ku dhufto Sion walaalkiis balse nasiib daro waa ay noqon weyday. Sion walaalkiis ayaa burcadkii shaarka ka qabtay wuuna garaacay. Sion wuxuu dhahay maxaa iga daba dhigay maxaad iga rabtaa. Kadib si lama filaan ah burcadkii ayaa midi la soo baxay wuxuu ku dhuftay Sion walaalkiis. Sion ayaa goobta imaaday wuxuu arkay walaalkiis oo dhaawac ah isla markiiba Sion wuxuu isbitaalka keenay walaalkiis si uu u daaweeyo. Sion wuxuu u weydiiyay walaalkiis burcadka wajigiisa wuxuuna dhahay waa inaan raadinaa qof artista ah si uu u sawiro burcadka wajigiisa. Maalintii xigtay burcadkii wuxuu soo diray burcad kale maadaama midkii hore wajigiisa la arkay. isla burcadkii cusbaa ayaa qoray soo qaatay habeen madow oo roob da'ay wuxuu qoriga wajiga ugu qabtay Sion aabihiis wuxuuna ku dhahay wiilkaaga waa hantida waa inuu bixiyaa lacagta aan ka rabno haddii uu bixin waayana adiga ayaan ku dilaynaa. markaana waxaan arkaynaa Erika iyo Sion hooyadiis waxayna arkayaan burcad dhuumanayo oo gaari wato banaankana uu ku sugayo burcad kale oo gudaha guriga ku jiro. intaas kadib Sion hooyadiis waxay wacday wiilkeeda waxayna u sheegtay waxa meesha ka socdo oo dhan. Sion ayaa yimid isla goobtiina si dara burcadkii qarax intuu gudaha dhigay ayuu wuxuu afduubtay Erika. intaas kadibna wuxuu soo wacay Sion uguna hanjabay inuu dili doono xaaskiisa haddii uu lacagta uu heli waayo. codka ayuuna u furay aad ayuu ugu baqay Sion. Erika waa ay oyday maadaama midida qoorta uu uga hayo burcadka. nasiib dara gaarigii ayaa fariin goostay wuxuuna ku dhacay dhagax wuuna burburay. Taleefoonkii ayaana isjaray. Sion aad buu u naxay mar kale. maalintii xigtay Sion wuxuu ku wargeliyay warbaahinta in xaaskiisa uu jeclaa laga afduubtay wuxuuna warbaahinta ka sheegay qofkii keena burcadka afduubtay xaaskiisa inuu siin doono lacag aad u badan. isla goobtii gaariga uu ku dhacay waxaa imaadeen booliska magaalada waxaana la wacay Sion iyo dhammaan familkiisa. habeenkii markii la gaaray Erika ayaa si lama filaan ah ka soo carartay burcadkii maadaama uu isagu u cabsanaa. intaas kadib burcadkii waxa uu soo qaatay qori waa uuna soo daba kacay laakiin waxa uu maqlay rasaas waa uuna isaga haray kor ayuuna ka eegayay maadaama meesha ay joogeen boolis aad u tiro badan. Erika waxay aragtay Sion laabta ayuuna geliyay wuuna ku farxay laakiin burcadkii ayaa si laba filaan ah qori ku qabtay Sion. Sion ayaa ku jawaabay lacag waxaad doontaan ku siinaa faraha iga qaad. burcadkii wuxuu dhahay wax lacag aan kaa rabo ma lahan maanta waa maalintii dunida kugu dambeysay waan ku dilayaa. isla markiiba waxaa goobta imaaday boolis waxay burcadkii ku dhaheen dhig hubka waa uuna diiday waxa uu rasaas ku furay Sion. Sion ayaa dhulka ku dhacay. Erika ayaa soo carartay wayna qalisay isla markiiba waxay ka soo kacday hurdada waxay ogaatay inay riyoonaysay. isla markiiba waxay wacday Sion wuxuuna u sheegay inuu caafimaad qabo uuna joogo guriga banaankiisa wayna u tagtay. daawadayaal filimkeena xiisaha badnaa meeshaas ayuu noogu dhammaaday.